nasiib ayay leeyihiin inay nool yihiin laakiin xaaladdu way ka sii daraysaa waxay u muuqataa inay dadkani ka badbaadeen duufaanadii ugu xumaa ee abid halkan ka dhaca ma haystaan waxay cunaan iyo meel ay degaan toona duufaanta idaay wax kasta oo horteeda yaallay way qaaday waxay ka samaysay harooyin meelo ay mar ahaan jireen magaalooyin waxaana ku xaniban dadkii badbaaday ku dhowaad 7 kadib gargaar ayaa soo gaadhaya koonfur afrika diyaaradaheedii helikobtarada ayay u direen si ay gargaarka u daabulaan hay-ado caalami ahina qorshahaasi ayay wadaan dowladda ingiriisku waxa ay dirtay taandhooyin gargaar kalena waddada ayay ku sii jiraan dowladdu 23 milyan oo dollar ayay u qoondaysay howlaha gargaarka waxaa loo dirayaa meelaha duufaantu saamaysay laakiin caqabado ayaa jira xuduudda Zimbabwe gargaar ayaa gaadhay iyadoo dad badan la soo badbaadiyey kumanaan kale ayaa u baahan in la daadgureeyo dadka dhaawaca ah iyo waayeelka ayaa ahmiyadda koowaad la siinayaa waa go'aamo ay adag tahay inay qaataan shaqaalaha samata bixinta marka la eego baaxadda ay hawshu leedahay si dhab ah looma oga inta ay leeg tahay dhibaatada halkan ka dhacday xilliyo adagna inay soo socdaan ayaa laga cabsi qabaa iyada oo roobab laxaad lihi ku soo fool leeyihiin deegaanadan duufaantu ku dhufatay webiyada ayaa iyagana laga cabsi qabaa inay qarka soo goostaan tan oo dhibaato kale ah waxa kale oo laga cabsi qabaa inay dad badani khatar u yihiin xanuunno kumanaan kun ayaa waayey wax kasta oo ay haysteen waxa ay sugayaan gargaar soo gaadha inta ka horaysana waa ay samrayaan